shirku runtii si wanaagsan oo habsan oo laga hadilmay in badan hadilmay lagu noqday si wanaagsan looga baaraandagay qodobada ka soo baxayay ayuu u socday waxaana ila tahay arrimo fara badan oo dan weyn ugu jirto wadanka in hadilmay laga soo saaray wadanku saynu ogsoonahay arrimo dhibaatooyin fara badan baad moodaa inay ku gadaaman yihiin waqtigana loo baahan yahay in si degan oo hadilmay xaqiiqadu ku jirto runtu ay hadilmay la taabanayo in hadilmay loo galo arrimaha sidaas aawadeed baa qodobadii soo baxay runtii ay u taabanayeen waxyaalo fara badan oo wadanka hadilmay loo baahan yahay in la isdul taago waxaan rajaynayaa dawladda iyo dadweynaha hadilmay Soomaaliland ba inay qodobadaas hadilmay si wanaagsan ay u eegaan lagana halka ka soo baxdo yuhuun iyo wada noolaansho iyo wada shaqayn hadilmay runtii wadanka dhan hadilmay saameeya arrimaha hadilmay la tilmaamay wadanka in hadilmay arrimo laga yaabo siyaalo gaara lahaanshaha wadanka iyo hantida wadankaba laga yaabo beela mucayan inay hadilmay iyagu u qaateen mid inay iska leeyihiin waxay la tahay inay qodobadaas si wanaagsan ay u soo jeedinayeen sida kaliya wax ku hagaagi karaan waxa weeyaan wada lahaansho walaalnimo horumar intaas ma lagu gaari karaa dhinaca kale Ismaaciil Hurrabuuba ayaa soo bandhigay tallaabada ay qaadi doonaan haddii xukuumaddu fulin weydo qodobadii ka soo baxay shirka buurta Gacalibaax ugu soo gabagaboobay qaar ka mid ah beelaha Soomaaliland waxaana uu yiri wax la khasbaya ma jirto laakiin si runta in la wada eego danta la wada eego ayaa hadilmay meesha ku jirta halka aniga waxay ila tahay qof hadilmay wanaaga iyo yuhuun hadilmay wadanka doonaya qodobadii la soo hordhigay dadweynaha dhan dadka Soomaaliland dhan ba hadilmay loo soo jeediyay dawladdu ka mid tahay waxay ila tahay inaanay hadilmay danta ku jirto in la wada eego si wanaagsan hadilmay la isaga fahmo Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa hadilmay faras biyo waa dulgeyn kartaa laakiin kuma khasbi kartid inuu biyaha cabo laakiin farasku hadduu ooman yahay waxaad og tahay inuu cabayo biyahaas maanta Soomaaliland waxay u ooman tahay cadaalad midnimo iyo hadilmay lahaansho la wada yeesho hadilmay wadanka ayay u baahan tahay taasaanay u wada ooman tahay in xukunka hayay inaan hayn baa u wada ooman tahay kolkaas aniga waxay la tahay arrintaasi inay noqon doonto mid hadilmay cid waloo doonaysa wadanka horumarkiisa iyo hadilmay horumarkiisa u baahan ay hadilmay doonaysa inay hadilmay aanay iska dhagatiri doonin arrintaas Buuba ayaa gabagabadii soo bandhigay sababta keentay in beeshoodu ay shirka ku soo casuumi waayaan laba beelood oo ka mid ah beelaha dega Somaliland wallahi wala wada ogsoon yahay oo hadilmay beela aan hadilmay kolkii shirku hadilmay la eego ya soo iman kara marka hadilmay soo jirtay beela hadilmay la yiri malaha imika hadilmay ka qaybgalka ila meeshana hadilmay lagu mashirayna waxay ahaydun gabagabadii shirka iyo hadilmay in la socodsiyo qodobada soo baxaya taasi ma aha hadilmay beelaha in la xaajooda hadilmay meesha kuma jirto waa wada xaajoodka beelaha Soomaaliland ku nool yaa loo soo jeediyay hadilmay qodobada khaasatan dhinaca lahaanshaha oo lagu hadilmay hadilmay nisbaynayo beelaha qaarkood inay si gaar ah soo haystaan in iyagu iska leeyihiin wadanka oo taladiisa iyo wixii loo baahan yahay ba iyagu iska leeyihiin waxay ila tahay qodobadii waa arkayseen laakiin waa laga maarmaan beelaha dhan inay soo wada yimaadaan wada tashadaan laga wada hadilmay xaajoodo sida ugu haboon ee maanta dhibaatooyinka faraha badan ee ku geedaama wadanka hadilmay dhinac kasta ka hareereeyay sidii looga bixi lahaa